Waxaan maanta halkan kaga hadlayaa qiso yar oo ku dhacday wiil la yiraahdo Bilaal Xaar Khan. Haddii aan qisada guda galno, waxaan sanadkii 1990 ku dhashay waqooyiga galbeed ee London, waxaana kusoo koray xaafadda Neasden. Hooyaday waxay u dhalatay Jamaica, waalidiinteedana waxay asal ahaan kasoo kala jeedaan bariga Aasiya iyo Afrika. Aabahayna waa Kenyan, asal ahaan kasoo jeeda koonfurta Aasiya, inkastoo uu ku dhashay bariga Afrika. Qoyskiisu waxay kasoo jeedaan qayb ka mid ah Kashmir oo hadda loo yaqaano Pakistan. Waalidiintayda labaduba waxay qaxooti ahaan ku imaadeen Ingiriiska iyagoo dhalinyaro ah, waxayna isku barteen iskuulka. Waxaan xasuustaa anigoo ka carooday mar uu macalinkaygu igu wacay Bilaarina magacaygu ma ahan waa Bilaal. Marka wuu kari waayey wuxuuna igu yeeray Bilaari. Hooyaday iyo aabahay waxay ku dadaaleen in ay wax iga baraan dhaqanadayda labada dhinacba, laakiin marka la eego cuntada aan cuni jiray iyo muusigga aan dhegeysan jiray, waxaan u batay dhanka Jamaica oo hooyaday ay kasoo jeedo. Neasden waa xaafad ay ku badan yihiin dadka jinsiyadoodu isku qasan tahay. Anigana lama soo korin dad caddaan ah, laakiin inta badan macalimiintayda iskuulka ayaa ahaa caddaan, waxayna ku rafaadi jireen dhawaaqista magacayga. Qaarkood way iga hadlayn jireen magaca. Waxaan xasuustaa inaan ka caroon jiray markii mid ka mid ah macalimiinta uu igu yeero Bilaari. Waxaan u malayn jiray inaan aniga la igu wacaynin. Markaas waxaan aad ula yaabi jiray sida ay ugu adkaan karto inuu ku dhawaaqo magaca sida fudud ee Bilaal. Markii aan soo gaaray 8 sano jir, waxaan xasuustaa inaan ciyaalka qaraabadayda ah u sheegay sida aan ula dhibaataysanahay magacayga. Waxaan u sheegay inaan doonayay magac sahlan si markaas aan uga gudbo caqabadaha ah inaan mar walba magacayga sharaxaad ka bixiyo. Waxaan rabay inaan yeesho magac Ingiriis ah, waxaan jeclaa inaan la baxo David. Ma jirin sabab gaar ah oo aan ku xulanayay magaca David, markii laga soo tago inuu yahay magac fudud oo dadka ku dhawaaqi karaan. Laakiin muddo yar kadib waxaan bilaabay inaan ka labalabeeyo. Waan ka fikiray, waxaana is idhi waa inaad hesho magac Ingiriis ah oo ka bilaabanaya P. Waxaan ku fikiray inaan baxsado Ben, laakiin maya, magacaas ma ii cuntamaynin. Waxaa jirtay arrin kale oo ku saabsan magaca Bilaal. Waa magac Muslim ah oo ka yimid qoyska aabahay ee reer Kashmir, balse aniga waxaan soo barbaaray aniga oo ah Masiixi. Sidaas awgeed, su'aalo fara badan ayaa arrintaas la iga weydiin jiray. Markii aan kaniisadda tago, wuxuu yiri aniga oo 9 sano jir ah ayay hooyaday ii kaxaysay suuqa. Waxaan tagnay dukaan buugaagta lagu iibiyo oo ku yaala suuqa Sheffield ee galbeedka London. Dukaankaas waxaa lahaa nin haysta diinta Rastafari ee ay ku dhaqmaan qaar ka mid ah dadka u dhashay Jamaica. Wuu ii yimid wuxuuna igu yiri magacaa. Si degdeg ah ayaan ugu jawaabay, aniga lama hadlo dadka aanan aqoonin. Laakiin isla markiiba waxaa noo timid hooyaday. Waxaan dareemay kalsooni, waxaana iri magacaygu waa Bilaal. Ninkii ayaa yiri waa magac aad u awood badan, ma taqaanaa Bilaalkii caanka ahaa? Waxaan iri maya, ma aqaani. Wuu iga sheekeeyey. Wuxuu ii sheegay inuu jiray Bilaal ibn Rabaax, kaas oo isagoo addoon ah ku dhashay magaalada Maka sanadkii 580. Waxaan niyadda iska idhi waa sheeko cajiib ah. Ninkii dukaanlaha ahaa wuxuu iisii sheegay inuu Bilaal lahaan jiray cod qurux badan, uuna Nabiga sallallahu alayhi wasallam u soo xushay inuu mu'adin u noqdo. Ninkii wuxuu igu yiri ma heesi kartaa, ayuu yiri. Waxaan iraahday ma heesi karo, ayaan ku yiri anigoo yaxyaxsan oo rajaynaya inuusan idhihi doonin hees qaad. Laakiin niyadda waan ka faraxsanaa. Waxaan ku niyadsamaa inaan ugu dambeyn kasban karo magacayga aan soo shaac bixin doono. Waxaan niyadda iska idhi hadiiba magacaagu wato sheekada sidaas cajiibka u ah, sabab aan ula xishoodo ma jirto. Xaguu ka soo jeedaa magacaaga? Sideed ku heshay magaca noocaas ah? Maxay waalidiintaadu kuugu bixiyeen magacaas? Su'aalo noocaas ah ayaa la iga weydiin jiray magacayga aan ku rafaadsanaa. Waxaan qaatiyaan ka taagnaa inaan markasta sharaxaad dheer ka bixiyo magacayga iyo sida uu ku yimid. Laakiin markii aan la kulmay ninkii reer Jamaica oo lahaa dukaanka buugaagta lagu iibiyo, waan joojiyay rabitaanka magaca Ingiriiska oo ahaa David.
Hadda dadka kale ayaa jeclaan lahaa inaan lahaado magacooda oo kale ah. Uguma dulqaadan karo dadku inay iigu yeeraan magacyo kale oo aan Bilari. Markii aan dhammaystay jaamacadda, waxaan bilaabay inaan qabto siminaaro ku saabsan arrimaha bulshada iyo waxbarashada iskuulada. Xitaa meelahan intii aan joogay, dadku waxay la rafaadsanaayeen magacayga ku dhawaaqitaankiisa. Dhowaan waxaan qabanqaabinayay siminaaro loo qabanayay iskuul ay wax ka bartaan arday caddaan ah. Macalinka iskuulka markii aan xiriirnay, waxaan email ugu sheegay inuu magacaygu yahay Bilaal Xaari Khan. Marar badan ayuu emailka iigu soo qoray magacayga Bilaal, laakiin maalintii uu siminaarka dhacayay ayuu markii uu ardayda igu soo dhaweeyay si lama filaan ah u yiri, "Ninkan waa Xaari." Aad baan ula yaabay arrintaas. Waxaan is iri, muxuu ahaa ninkani? Markii aan ardaydii soo hor istaagay ayaan ku yidhi, "Haye, waan idin salaamay, magacaygu waa Bilaal." Dadkii ku jiray qolka oo dhan waxay fiiro ugu dhaqaaqeen macallinkii, waxayna u muuqdeen kuwo jahwareeraya. Waa la iska aamusay, kadibna waxaan bilaabay inaan hadalkayga sii wato. Markii ay noo soo dhammaatay ayuu macallinkii ii yimid, wuxuuna iga raali geliyay arrintii dhacday, laakiin wuxuu ku adkaystay inuu sidaas u sameeyay maadaama uu filayay in magacaygu ku adkaan doono ardayda hortooda. Balse waxaan niyadda ka ilaaliyay, maya, ma uusan ku adkaan, waayo ardayda qaarkood ayaa ii imaadeen, waxayna magacayga ugu dhawaaqayeen si sax ah. Xaaladuhu way is soo beddelayeen muddooyinkii dambe. Haddii aad eegto liiska magacyada ugu badan ee carruurta ku dhalatay Ingiriiska 2017, waxaad ku arkaysaa in magacyada Mohammed iyo Matthew ay ku jiraan 50 magac ee ugu sarreeya dhinaca wiilasha. Sidoo kale, Aaliyah iyo Luna waxay noqdeen 50 magac ee ugu sarreeya dhanka gabdhaha. Sidaas awgeed, waxaa la rajeynayaa in ay sii badan doonaan dadka loo bixiyo magacyadaas, laakiin hadda waxay u muuqataa mid adag. Weli dadka qaar ayaa isku dayaya inay magacayga u beddelaan magacyo kale oo carabkooda u sahlan. Magacyada naanaysta ah way iga xanaajiyaan. Ma dulqaadan karo in la igu yeero Bilari ama Billy. Waxaan markaas soo xasuusanayaa Bilari Michael oo ka tirsan barnaamijka EastEnders. Waxay doonto kugu badato, laakiin waa inaad fahanto sida loogu dhawaaqo magacayga aan hadda kuu sheegay. Haddii aad ka dhigto magac adiga dhaqankaaga u dhow, ma ahan mid aniga dhaqankayga u dhow. Carruurta ku sugan Ingiriiska waa inay ku koraan iyagoo magacooda jecel oo ku faanaya. Waxaan u samayn karnaa qayb waxbarasho oo ku saabsan sida magacyada loogu dhawaaqo. Sidaas uma adka. Haddii aad ku dhawaaqi kartid magac kasta oo adag, waad ku dhawaaqi kartaa magacyadeena, ayuu yiri ninkii. Wayna soo gabagabowday qisadii yarayd. Asxaabta, waxaan idinka codsanayaa inaad sii share garaysaan, subscribe na saartaan haddaad nagu cusub tahay, kambalelkana furo.